haddaad rabto inaad ka saarto qofka guriga kula qoran maanta waxaan kuu sheegayaa sida kaga saar lahayd waxaan ogahay dad badan ay soo dhahay daahir faarax waa isku fiicnaan jirnay laakiin hadda iskuma fiicnayna guriga ka saaran rabaa ama waa iska kaftamayaa arrinta haddaad rabto inaad samayso calaa kulli xaal waxaan kuu sheegayaa nidaamka raaci lahayd oo step by step guide ah walaal soo dhow magacayga wax la yiraahdaa daahir halkan waxaan kaga hadalnaa real estate investment iyo wax loo yaqaan personal development waxaan ahay the founder of Sahan Investor waa platform dadka Soomaalida ay ka bartaan real estate investment inshallah nagu soo boqo sahaninvestor.com haddaad rabto arrimaha guryaha inaad ka caawiyo ama guri cusub inaad iibsato inshallah waxaa ka soo qabataa website-kayga sahanrealty.com inshallah na soo follow garay video noocan kala soo aragto waan ku bilaabayaa okay marka koowaad process-kan haddaad rabto qofka inaad guriga ka saarto process-ka waxaa loo yaqaanaa loan assumption the first thing aad samaynayso there's five steps aan dulmari doonaa the first step aan marayso wax loo yaqaano you have to check mortgage terms so mortgage-kan qofka kula jiro waa inaad review garaysaa agreement-ga waa inaad ogaataa muu ku ogolaanayaa wax loo yaqaano does it allow you for loan assumption inuu qof kale lagu wareejin karo magaciisa muu ku ogolaanayaa so there's some loans aa jira aan kaa yeelinin loanka waxaa ku xiran fine printing warqadda aad saxiixday ayay ku xiran tahay kuwa qaar kaama yeelayaan inay qofkani magaciisa ka saari karto laakiin I will say 80% of them way ku ogolaanayaan taa haddaa kasoo dhammaato step 1 waaye step 2 waa qualification waaye so badanaa bangiga markii ay qofkani guriga ka saarayso bangiga waxay diidayaan inay riski qaataan maadaama ay diidayaan taas waxay sameynayaan qofkan keliga haddaa rabto inaad meesha ku harto qofka ku haraya meesha waxay soo ogaanayaan qofkani creditkiisa ma fiican yahay dakhligiisa ma fiican yahay dhaqaalahaan ma dhisan yahay haddii ma yahaan qofka kale ma fasaxayaan so way kugu dheganaanayaan weli step 3 waxay noqonaysaa application na buuxiso applicationkaasoo aad codsanayso wax loo yaqaano application of loan assumption wax la dhaho baa buuxsanaysaa so taas markaa buuxsato waa markay processku si fiican kugu bilaabmaya waa markay soo jeegareen creditkaada soo fiirinayaan dhaqaalaha soo fiirinayaan wax loo yaqaano DTI oo debt to income ratio deyma lagugu leeyahay soo fiirinayaan wax walbay soo baarayaan literally everything soo ogaanayaan so almost waa the same concept waa adigoo guri iibsanaya la mid tahay marka qofka ay ku wareejinayso taa hadday ka dhammaato then waxay ku soo diri doonaa warqad oo loan approval ah that loan approval kaas basically waxa weeyaane waa loan approval of loan assumption waxa la dhaho the loan assumption kaasi qofkii in laga ogolaaday inaa qofkii ka saari karta meesha bay ku ogolaadeen so taas hadday ku ogolaadaan the last step oo ku hartay keliya waxaa loo yaqaanaa release of original borrower so qofkaasi ah oo laga release garan doono in guriga laga saari doono oo ah wax mas'uuliyad ah ama wax walba inay adiga kugu ahaan doonaan gooni kaliya ku hari doonaan so marka ka bilaabato qofka laga saaray warqad uu saxaya warqadaas markuu saxo saas kaga dhamaatay taas waxay cadeynaysaa bangiga inuu qofkan ka saareen hadhow mustaqbalka duu rabo qofkan guri inuu iibsado guri inuu iibsan karo hadduu wax kale inuu qabsado rabo uu qabsan karo oo qof systemku ka muuqanin qofkan mortgage inuu leeyahay laakiin processkani wuu fudud yahay wuuna adag yahay haddii uu qofka aan kugu darayaa taas hadduu qofkaasi aan shakhsigaasi rabo in laga saarin waa isaga diid inuu saxo warqadii kama saari kartid so marka koowaad waa inaad qofka aad garanayso ama aqoon u leedahiin guriga kula qaataa hadhow qofkaasi horta guriga waa hanti sidiisaba haddaad si u fahanto waa hantidaasi qof dadka qaar waxay rabaan like gurigan masuu joogaa 400,000 qofkaasi 400,000 labadiina haddaad isku dhigtaan maxkamad isla aadaan basically 200 lain kala qaybinaya waa gurigaasi haddaa pay off ka dhigtaan waay so muhiim waaye inaad ka fiirsataa qofka guriga ku qoraysaa inshallah intaas in haya maanta inshallah na soo follow garay hadda video noocan kala ka yeelayso hadda rabto guriga iibsataan waxa ka soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com hadda rabto real estate investment barato ay kamid tahay buy and hold fix and flip subject to wholesaling inshallah igu soo boqo website-kayga sahaninvestor.com assalamu alaykum